qaar ka tirsan odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolada Awdal iyo Salel oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxay sheegeen inay diyaar u yihiin ayna galayaan doorashada isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada taasi oo hore loo shaaciyay qabsoomida doorashadan oo ay ka soo horjeesteen qaar ka tirsan dhalinyarada iyo odayaasha ka soo jeeda gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa waxay maanta odayaashani dhaqanka ee ka soo jeeda gobolada Awdal iyo Salel ay si cad u sheegeen inay diyaar u yihiin ayna sidii hore ay ku galayaan doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka iyagoo arintani ka hadlayana waxa hadaladoodii kamid ahaa in la geliyay moron iyo shiki iyo mugdi la geliyay oo la leeyahay cid baa diidan cid baa doorashada ka soo horjeeda cid baa waliba khaasatan wuxuu yiri dadkii soo wada dhaafta maaniyo ugaasga lagu soo socotaa buu yiri ninkii war maanigii albaabka fadhiyay iyo mugdi la gelinaya aniga waxay gool leeyahay doorashada la diidan yahay maxamed xasan diidan doorashada waxa halkan jooga cuqaashi dhaqanka ee beelaha xukumaysay ee maxamed xasan joogta halkan oo u dhan baahadeedii waxaan cadaynaynaa mugdiga iyo moronka la geliyay doorashadu mid mugdi iyo moron la geliya maaha waa jiritaankii iyo Soomaaliland dawladnimadeedii ayay ka turjumaysaa Soomaaliland doorashadeeduna maaha wax moron la geliyo cid moron gelinaysaana waa cid diidan ma yihiin horano uma diidin haddana ma diidin saami iyo awood qaybsi iyo waxba lagu hadlayay oo lagu marmayay waayadani waxaana asxaabta qaranka iyo xukuumaddu markii ay isku tageen waxay keeneen war waxa aan dib u dhiganay doorashada maanta aynu galno oranayno saami qaybsigii waan ka baxnay oo nacam waxba kama doonayno xukuumadda ma lihin saamiga iyo saluugu mar walba wax jiri doona la isweydiin doono cid walbana way qabtaadee Soomaaliland laakiin doorashadu waa biyo kaba dhibcaan waa la gelayaa doorashada maanta doorashada ka soo horjeeda oo looga shikiyana ma lihini annagu xukuumad daabanna waxaan qancinaynaa u malayn iyo suldaanadu waa kuwii saami daba socdo qoladii kursiga ku fadhiday baa gambiday iyo yar diidanaayeen oo halaydinka horeeyo horeyntiina way dhacday waa kuwa ku dalooliyay hortooda taas sidaa baan ka naxay waxaan maanta ku xidhaynaana ma jiro doorashada waa la galayaa maxal case waxaan la hadlayaa madaxweynta maxal case kolley dadku wax waa kala riixdaa kursigana cid bakol baa ku fadhida maxal case wuxuu ku fadhiyaa kursigii madaxweyne ku xigeenkii waxyaabahan la sheegay lafteeda saama qaybsigana dee kuraasada kuma xidhna foodna kuma xidhne waxaan leenahay sideeda haddii saami qaybsigu tan halkay tahay loo doono laakiin foodka cidda faragelinaysa hor joogta ka qaada faraha intaasaan leenahay waxaan leenahay cidda kale saamiga la yaaban la doonayo la yaaban beelaha bariga iyo meelaha Hargeysa lafteedaba de saamiga waxay taala maamulka madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeenka iyo wixii golaha madaxtooyadii reer ma yaalo waxaanu maalmahan maqlaynay doorashada la qabanayo waxa ka soo horjeeda beelaha maxalcas xasha kelmadda waxaanu doonayaa cidii laga maqlay ama tiri horta xaal ka bixiso beelaha maxalcas maaha marti xisbiga marti uma aha dawladda Soomaaliland marti uma aha wajiridii uu ka biqlay xisbigu maanta talada xisbiga xaakimka maxalcas xisbiga maskax iyo maal intaba uu gashaday dhismaha Soomaaliland qayb weyn buu ka qaatay inuu hore u wada mooyeen inuu ka hor yimaado siyaasadaha xisbiga iyo dawladda horta meesha ma taalo annagu hadlan afka beelaha maxalcas waxaanu ballan qaadaynaa doorashada isku sidkan soo socota annagu diyaar baanu u nahay dadkeegana waa u diyaar salaada joogtun baanu tukanaynaa ta joogtaa waa doorashada doorashadana waynu galaynaa
danaha gadabuursi iyo wixii gadabuursi ka dhexeeya dee maalintiisa aw isku raaco ayuu doonan marka aw isku raaco uu ka midoobo ayuu gadabuursi wixii ka maqan doonan maanta laakiin doorashaa joogta doorashada haddaanu nahay beelaha maxamed case waanu galaynaa beelaha maxamed case ma galayaan doorasho ninka ku dhawaaqay taasi waxa weeyaan mag buu ka bixin waa sida jiifka uu yidhi waxa weeyaan madaxweynuhu wuxuu noo ballan qaaday mashaariic waaweyn oo ka mid tahay dariiqa Lowya Cadde ilaa Boorama waan ka sugaynaa waxa weeyaan beeraha ayaa ka mid ah nolosha waartay horumarkeeda ayaa ka mid ah ballan qaadadaas oo dhan baa madaxweynaha uga fadhinaa inuu noo buuxiyo doorashaduna tu gorgortan ku jirta ma aha waan galaynaa awdal haddaan nahay iyo selel waxaan galaynaa doorashada bilaa shuruud baan ku galaynaa Sakariya Cabdi Shaafar Sakariya Saxane telefishinka madaxa bannaan ee TV magaalada Boorama.